dabcan ma awoodo inaan muusig farxadeed ku bilaabo waayo waa maalmo u murugo badan dhammaan mushaaciqda shirkadda Bollywoodka si gaar ah gabadha lagu magacaabo Rani Mukerji xanuunkii wadnaha geeridii ku timid midkii adduunka ugu jecleed waxay ahayd xidig raadinaysa nolol ku dhisan jecel laakiin waxaa haleelay arin aan marnaba la saadaalin markii la maqlay wixii ku dhacay waa la argagaxay cid kastoo cishaaqda shirkadda Bollywoodka way ka xanuunsatay wixii ku dhacay Rani Mukerji ayadoo tiri sida tani ugu horeen waxaa mahad iska leh intii taqaana garanaysa muuqayga iyo maqalkayga si gaar ah waxaan aad ugu mahad celinayaa inta gaarsiisa dadiyowga dunida qisada xanuunka leh ee igu dhacday maalmihii quruxda badnaa waayihii murugada lahaa waxaan soo qaatay waqti hore xitaa waxaan ku dhawaa inaan jecel dartii u geeriyoodo waana midkii igu xanuunka badnaa ee abidi soo mara maasan tahay fikirkaaga qaybta hoose commentiga noogu reeb si ay dhiirigelin nagu noqoto aan idinkugu soo gudbino warbixino xiiso badan la wadaag asxaabtaadana u sii share garee WhatsApp Google Plus iyo adeegyada kale ee social media magacaygu waa Rani Mukerji waxaan ku noolahay magaalada Mumbai ee cariga gudaha dalka India waxaan doonayaa qiso igu dhacday inaan idin soo gudbiyo muddo hadda laga joogo 30 sano da'deeduna ahayd 17 sano jir ayaan waxaan isbaranay wiil durbaba waxaan niyadeyda geliyay inuu noqon doono midka kaliya farxadda adduunyada isiin lahaa waxaan ahaa arday dhigtay iskuul isagana iskuulka ayuu qayb ka ahaa waxaa sheeko walaaltinimo kadibna dhaxmaray xiriir jecel wuxuu ahaa xiriirkii ugu horeeyay ee aan yeesho waxaan wada soconay muddo 6 sano ah farxaddii quruxda lahayd waxaan soo qaatay xilliga inkastoo hadda aan haysto farxad laakiin farxaddaasi weligeyga ma hilmaami doono sababtoo ah saameyn weyn ayay ku yeelatay nolosheeda wuxuu igu dulqaatay ardaynimadeeda waayo xilliga ma aan shaqayn jirin waxaa jirta qisooyin badan aan isla soo marnay xitaa ehladiisa qaarkood ayaa igu nacay wiilkan jeclaa oo magaciisa awoodin inaan halkan ku baaxiyo laakiin waan iska samray maalmo kadib waxaa ii dhammaaday dugsigaygii sare waxaa bilaabay jaamacad sanadkii 1985 waxaa isaga loo sheegay in loo hayo leyn dibadda wuu ka madax adeegay waayo wuxuu go'aansaday anigoo jaamacad dhiganayo inuu guursado run ahaantii waxaa sameeyo ayaan garawaaye kadib ayuu wuxuu ii sheegay inuu u soo baxay leen isla markaana dalka dibaddiisa uu jaamacad ka dhiganayo waan naxay marna waan farxay sababta u naxay ayaa waxay tahay ma jecleen inuu iga fogaado qof aan jeclahay tan farxadda ayaa waxay tahay markuu ii sheegay wuxuu ahaa mid faraxsan aniga mar walba waxaan jeclahay farxaddiisa arintan markuu ii sheegay waxaa ii bilowday murugo walwal joogta heer waxaan gaaray in waxbarashadii xitaa aan ka seegseego wax walba waan iska adkaystay maalmo kadib ayuu isoo wacay wuxuuna iga dalbaday inaan gurigiisa imaado markaas buu igu yiri xayaati maxaa ku helay soo ima jeclid anoo ilmeynaya baan waxaan ku iri haa macaane markaas buu haddana igu yiri adiga waxaa tahay qofta kaliya aan jeclahay ma adoo sidaa u qurux miyaa qof kale kaa dooran karaa ogow nafteeda adaa leh waxaan kaa ballan qaadayaa inaad noqoto midda kaliya aan farxadda la qaato markaas buu igu codsaday intuu safarkiisa laga gaarayo inaan isla soo wareegno waan ka aqbalay waxaan xilligaa dareemay farxad aan weligeyga dareemin xitaa intaa iskuulka dhigan jiray farxaddaasi ma aan dareemin si kastaba markay sidaa ku socday baa waxaa loo sheegay in bixitaankiisa la gaaray markaas buu iga dalbaday inaan dhaweeyo ilaa elboorka aan la tago ma jecleen laakiin waan ka aqbalay waayo wuxuu ahaa nolosheeda kadib elboorkii baa la tegay macsalaameen iyo sheeko kadib diyaaraddii buu koray waan xasuustaa hadalladii ugu dambeeyey oo yidhaahdo wuxuu ahaa qalbi niyaddeedu waxay jirtaa xaggaaga farxaddeeduna waa adi ogow nafsadeeda adigan kaa jeclahay markuu ereyadaasi dhahay waxaa indhahayga ka soo qumay ilmo fara badan markaas baa waxa ay arkay anoo ilmeynaya aabbihiisa wuu ii imid markaas buu igu yidhi gabadheeda maxay tahay ilintaan
aabbo waa mid farxadeed, dumarkuna waa taqaanaa inay ilantooda celin karin xilli walba. dabadeed waan iska soo raacnay, xaafaddeedii baan imaaday. alloo umuuraha sahal, qofaan wax ogeyn ha cadaabin bay Soomaalidu tiri. intaa ayaan ku soo afmeenayaa qaybtii koowaad qisada xanuunka lahayd ee ku dhacday atiriishada lagu magacaabo Rani Muqraji.